intaan wali u gudbin arrimaha siyaasadda Dr. Ali nin madax oo ka soo jeedo gobolka Soomaaliyeed oo waqooyi bari Kenya ayaa tahay iskoolaadka dib baa hadda loo furay sidaan ognahay iskoolaadka gobolkii macallimiintii aan dhulka u dhalanin waa kuwii maaragtay ay guddiga macallimiintaba ay ka soo kaxaysay xaggaasi 9 bilood ayay iskuul ka maqnaayeen oo arrintaas waxay la qabaan maaragtay ardayda kale wadanka ka jiro ilaahay ka soo tolaya micin waa والله وسؤالات وناكسن أرين هورين وهاي ستنا ويان عبدي أرين هذا كورونا لسه درستي معها واد وقت هاي مركي أرجع حسة دفرها بدن ودن كذا عادي أيضا منا أي دبت هاي أو أرجع حسة دبك هايست ود دولك أس هايست بس قبل كأنك أنت جنين هايست قفل بنا هايستو حتى نسيقوني هاندت كي قبل كأسك بنا كيس كي ما دوم معلمين تهاي أياد مودي سنة منك أرجع حسة إن سيقوني هان ay u bartilmaamayaan marka sida daraadeed waad ogtahay sida sheegaysid guddiga macallimiintii waxay u baaqday dadka ayaga inay ka soo baxaan meesha ayada hedwaana nasiib darro laakiin dad badan oo dadka siyaasiyiinta iyo mudanayaalka gobolka ka imaaday oo fara badan ayay qaadeen waxay isku dayeen in iyo gabanayaalkaba counties-ka waxay isku dayeen inay qoraan macallimiin badan oo gobolka ka soo jeeda ay u furaan training loo sameeyo macallinimada sidii ay u qaban lahayn loo sameeyo oo maxay Soomaalida inta badan ma jecla dhalinyarada Soomaalida oo iskoolaadka soo dhameysay aad u xiiseeyaan inay macallin noqdaan marka incentives fara badan ayaa la siiyay haddana waxa laga gaaray meel fiican sidaan rajaynayo dad badan ayaa sanadkii iyo sanadihii aan soo dhaafnay qaar kamid ah ka qayb qaatay tababarkaas macallinimada lagu noqon lahaay haddana hadda xogaho waxaad moodaa argagixis aad hoos bay ugu dhacday laakiin waxaa kale oo bilcagsi nimankan guddiga macallimiinta kali dadka ay u baaqeen badi dadka soo laaftay waxa way dadkii iyaga u shaqeynayay oo public schools ay dawladda leedahay ka shaqeynayay iskuulada private-ka sida hore ay ka sii weyn ayay u joogaan dadkan gobolka ka imaad halkan markaan haddii aad fiirisa وانا جوجان لكن ماشي اللي جوجين اما قار يركو هرين اسكول ذا بابليك سو سيده هورو عليس كورونا ما جرى محايل هذا دad cusub ayaa bilaabay inay ku noqdaan gobolka ugu dambeyntii dhakhtar ahaan maxaad ugu baaqi lahayd maamada hadda ku daawanayso ardayga hadda ku daawanayo oo aan maaragtay day scholars ah oo subaxii inta iskoolka aadaan galabtiin iskoolka ka soo laabtaan markii loo fiiriyo in ay ka digtoonaadaan cudurkan COVID-19 arintaas waa muhiim arintaas aad iyo aad bay muhiim u tahay maxaa yeelay hadduu ardayga baxa leen qofka weyn ayaaba is ilaalin karin hadduu qofkii ardayga hayo oo dhalinyarada hay baxay waa ogtahay waa active games ayay ciyaaraan waa isdhex galaan mataqaana waa istataabanayaan waxaad dareemaysaa markaan fursadii aad ku soo qaadi lahaay cabuqaas inay aad iyo aad u sareyso ma viruskaas uu soo qaadi lahaa inay aad iyo aad u sareyso marka qofka waxaa la rabaa waalidka ah oo guriga jooga mar walba inuu digtoonaado uu ogaado amaba ka soo qaado cunugan markuu soo laabanayo bahalkaas uu la soo laabanayo kaba soo qaado sideedaba maxaad samaynaysaa marka mid ugu horeysa waxaa loo baahan yahay in cunuga markuu gurigaada imaado oo ka soo baxo iskoolka dharkii laga siibo dadaal ziyaado la geliyo qabaysto laga dhaqaa gacmaha maaskiga shalay u wati laga bedeli kara qof kastana ma awoodi kara run ahaantii amaba kuwa midka marada isticmaalaya habeenkii la dhaqo biyo kulul iyo saabuun lagu dhaqo waalid ahaan horto dadaalkaas in juhdi badan la geliyo waa muhiim waxaa dhici karta dadka barkood inay hataa fursad u haysanin oo biyo ay mar walba ku dhaqaan ay heli karin laakiin waxaad qaban karto baad qabane qof walba intuu qaban kara ha qabto ha la dadaala ardaydana mar walba ha la diyaariyo ha lala dadaala oo ha lala dadaarmo waa la yiraahdo warbahalkii aad soo socdo inkastoo ilmo yar ay yihiin is ilaali markaad iskuulka joogto macallimiinta laftooda in support la sii waa arrin aad ugu xoog badan waxaa dhici karta shaqaalihii hore oo ay haysteen shaqaale ka badan inay haysaneen laakiin culayska soo saarmay inuu 2 jibaar ama 3 jibaar yahay ilaan waa mas'uuliyad ziyaade waxbarashadana waa ziyaada arrintan kale oo corona ay keentana waa arrin ziyaade oo mas'uuliyad ziyaade iskuulada badan ma awoodaan in ay arrin sameeyaan waxa kale oo culays oo iskuulada haysta waalidiinta inay ogaadaan annaga dhamna ognahay in iskoolaadka muddo badan ay xirnaayeen ilaa 9 bilood
dhaqaal ahaan ay aad iyo aad ay u liitaan oy hooseeyaan marka iskuulaadka badi waxay ka codsanayaan waalidiinta in wixii ardayda lacagihii wixii looga talagalay ay horumariyaan iyadoo sidaa haddana waxaan ognahay dhaqaalihii oo waalidka bixini lahaa inuu iyadana hoos u dhacay oo shaqalaan ay ka dhacday meesho oo ka dhacday mataqaanaa economic iyo dhaqaalihii laftiisa u xirnay so waa challenges fara badan waana laga bixi doonaa laakiin hadda nidaamyadaas oo waalidkana mas-uulka la saaraya macalinkana mas-uulka la saaraya loona nuglaanaya macalimiinta arrimaha iyo challengeska haysta daraaddeed loogu nuglaanayo in lagu dadaalo waa muhiim